محمد البشير ayaa loo magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ee dalka Suuriya ka oo loogu fadhiyay inuu soo dhiso golo wasiiro oo ku meel gaar ah si loo xaliyo oo loo maareeyo xaaladda haatan taagan ee dalka Suuriya waxa sidaasi war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay hogaamiyaha ururka mucaaradka ee xukunka ka tuuray nidaamkii Bashar al-Assad al-Bashir ayaa 23 bishii Janaayo ee sanadkan 2024 waxa loogu doortay magaalada Idlib oo ay ka yimaadeen xoogagga la wareegay xukunka Suuriya inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dawladda badbaadada Suuriya si ay u maamusho Idlib iyo waqooyiga Suuriya oo uu dhisay golo wasiiro iyo hay'adaha kale ee dawladda taa oo aan shaqeynin nidaamka Bashar al-Assad uu ka saaray guud ahaan magaalada Idlib محمد البشير وحو ku dhashay Jabal Sawiya ee gobolka Idlib sanadkii 1983 waxa ka qalin jibiyay jaamacadda Xalab sanadkii 2007 oo uu ka qaatay shahaadada injineernimada ee dhinaca korontada 2011 البشير waxa uu noqday madaxa qaybta qalabka gaaska ee shirkadda gaaska Suuriya wuxuu xiriir wanaagsan lahaa Julani iyo xubnaha golaha shuurada kooxda Hayat Tahrir al-Sham ee hogaamisay kacdoonkii militari ee xukunka loogu tuuray Bashar al-Assad mucaaradka oo guud ahaanba la wareegay dalka Suuriya shalay axadii xaqiijiyay inay gabi ahaanba la wareegeen dalka Suuriya sidoo kalena ay xukunka ka tuureen Bashar al-Assad oo dalkaasi xukumayay ku dhawaad 24 sano Bashar al-Assad oo gabi ahaanba ka baxsaday dalka Suuriya iyo magaalada Dimashq oo muddo ka talinayay ayaa xalay waxa uu tagay magaalada Moscow ee taa oo dalka Ruushka u fidiyay galyo siyaasadeed isaga iyo reerkiisa si kastaba ahaatee colaadan Suuriya ayaa waxay soo bilaabatay sanadii 2011 taa oo Bashar al-Assad iyo xukunkiisa ay ku kaceen kooxo mucaarad oo ka dagaalamaya dalka Suuriya sidoo kalena ay kala taageerayeen garabyo sida Turkiga iyo Ruushka iyo Iiraan si kastaba ahaatee shalay Axad ayaa xukunka Bashar al-Assad uu soo gabagaboobay